kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka. waa 10ka bisha 3 sanadka 2024. kusoo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijyadeena taxanaha ah oo aan maalin kasta halkan kusoo gudbino annagoo kaga hadlayna caalamka iyo waxyaabaha ka soo kordhay. qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabihii ka soo kordhay arrimaha dekada la doonayo in laga dhiso magaalada Gaza. Hamas waxay gacanta ay ku dhigeen hubkii ugu badnaa diyaarada drones ah iyo noocyada kala duwan ee hubka. macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan howlgalka hubkaasi lagu qabtay iyo halka uu ka dhacay. taliyihii tababarka commandoska ciidanka Israa'iil oo gacanta Hamas ku baxay, halka lagu dilay ninkaas iyo howlgalka ay xoogagga iska cabinta ee Falastiiniyiinta ay sameeyeen. hadalka ka soo baxay Israa'iil baqdinta laga qaba Hamas bisha barakaysan ee Ramadaan. maxay maalmihii ugu dambeeyay sameynayeen xoogagga iska cabinta ee Falastiiniyiinta? makaarta cusub ayay dejinayeen. waa maxay sababta looga baqayo bisha barakaysan ee Ramadaan? macluumaad gaar ahaaneed oo arrintaasi ku saabsan iyo sida Israa'iil ay kaga walaacsan tahay Ramadaanka waan eegi doonaa. waxaa kaloo aan kula wadaagi doona wararkii ugu dambeeyay fariinta ay soo direen hoggaanka ugu sarreeya Hamas oo ku wajahan dalalka Carabta iyo sidoo kale hoggaanka wadamada muslimiinta. adigana qayb ka mid ah fariintaasi way kugu socotaa, waan arki doonaa insha Allah. qodobo kale ayaa raaci doona. soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeena, aad baad u mahadsan tahay. haddii aan ku horumarno Hindiya, maalmahan waxaa ka soconaya dhacdooyin aad u xanuun badan, iyadoo dadka mararka qaarkii la arkaya xitaa shacabkii oo dhibaato u geysanaya dadka ajaaniibta ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalalka muslimiinta. waxaa taa ka sii daran in xitaa meelaha qaar la arkayo ciidankii booliiska oo dad dukanayay oo muslimiin ah haraanti la dhacaya oo doonaya ama laad la dhacaya, kadibna dadkii shacabka ahaa ayaa ku kacaya ciidanka booliiska. marka Hindiya aad buu ugu sii kordhaya nacaybka dadka muslimiinta loo qabo. weliba dowladda hadda uu hogaamiyo Narendra Modi waxaad moodaa inaysan xitaa ciidanka booliiska aysan ku tababarin inay ixtiraamaan dadka muslimiinta ah. aan u duceyno walaalaha muslimiinta ee dalka Hindiya ku nool oo maalmihii ugu dambeeyay dhibaatada loo geysanayo aad ay usii kordhayso. haddii aan usoo laabanno barnaamijkeena maanta, waxaan xoogga ku saari doonaa Hamas iyo dhaqdhaqaaqii ay sameeyeen saacadii lasoo dhaafay iyo hadalka ka soo baxay. laakiin aan ka hormariyo maxaa ka soo kordhay arrimihii dekada. horta sidaan xalay idinla wadaagay, markab loogu talagalay inuu dekedan kusoo xirto ayaa kasoo dhaqaaqaya maanta oo axad ah magaalada Larnaca oo dalka Qobrus ah. waxaana uu kusoo wajahan yahay markabkaas sida ay dowladda Mareykanka iyo mas'uuliyiintaba ay sheegeen magaalada Gaza, iyadoo loogu talagalay dadka shacabka ah in gargaar lagu gaarsiiyo. maxaa dhinaca kale soo kordhay marka? dhinaca kale waxaa soo kordhay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Pat Ryder xalay macluumaadyo kale oo dheeraad ah ayuu ka bixiyay arrimaha dekada kumeel gaarka ah ee laga dhisayo magaalada Gaza. waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya midowga Yurub ay si weyn u qorsheynayaan inay u hirgeliyaan mashruucan, sidoo kalena sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgelin doono dekedan. inkastoo si kumeel gaar ah ay u shaqayn doonto dekedan, haddana waxa ay leeyihiin maalmo ayay qaadan doontaa dhismaha dekada kumeel gaarka ah. ilaa 1,000 askari ayaa ammaanka xaqiijin doona iyaga oo kaashanaya ciidamada Israa'iil. guutada gaadiidka qaybta 7aad ee dalka Mareykanka oo fadhigoodu yahay Virginia ayaa sida la sheegay ka qayb qaadan doona xaqiijinta amniga dekedan iyo dhismahaba. ujeedka ugu weyn waxay ku sheegeen in uu noqon doono in gargaarka lagu gaarsiiyo ilaa 2 milyan oo Falastiiniyiin ah. buundadan dhererkeedu waxaa la sheegay inuu gaari doono ilaa 1,800 mitir. shaqaale Amerikaan ayaana inta badan ka shaqayn doona. gargaarka sida la sheegay Qobrus ayaa laga soo qaadaya oo maanta waxa diyaar ah maraakiibta qaar oo ilaa shalay ilaa maalmihii la soo dhaafay la saarayay gargaarka loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka shacabka ee Falastiiniyiinta. waxyaabaha soo kordha waxaa ka mid ah Qobrus dhawaan waxay qaban doontaa marka kulan ay isugu imaanayaan mas'uuliyiin sarsare oo ka socota Carabta, midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. waxaana looga hadli doonaa gargaarka halkaasi la gaarsiinayo iyadoo Qobrus laga dejinayo iyo halka laga keeni doono gargaarka, maadaama kanaalkan sida ay sheegeen taageero u noqon doono dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. sida lagu sheegay bayaanka marka waxa arrintan iska kaashanaya Masar iyo Urdun iyo Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Qobrus iyo dowlado kale sida lagu sheegay warbixinta. aan ka soo laabana marka qodobka. guutada Ciisadiin al-Qassam waxay ku dhawaaqeen inay gacanta ay ku dhigeen hub ay lahaayeen ciidanka Israa'iil.
qoraal ka soo baxay guutadan ayaa waxaa lagu sheegay shalay in weerar adag ay ka fuliyeen dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza. weerarkaas oo sababay in ay noocyada kala duwan ee diyaaradaha droniska iyo hub ay lahaayeen ciidamada Israa'iil inay soo qabsadaan. qoraalka guutada Ciisediin al-Qassam waxaa lagu yiri waxaan qabanay oo gacanta ku dhiganay laba ka mid ah diyaaradaha droniska nooca loo yaqaan quadcopter oo ah diyaarado inta badan loogu talagalay in howlaha sahanka ay sameeyaan. diyaaradahan waxay sheegeen markaa in xilliga ay qabanayeen ay ku sugnaayeen dhinaca iyo xaafadda Al-Zaytuun. xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha ku yaala koonfurta magaalada Gaza. arrintan marka waxay ku soo beegantay saacado un kadib markii afayeenka Xamaas Abu Ubayda oo warbaahinta la hadlay soona bandhigay magacyada ilaa 4 ruux oo maxaabiis ah oo ay dileen ciidanka Israa'iil. sidoo kale qoraalka ka soo baxay guutada Ciisediin al-Qassam waxaa lagu sheegay in askar badan oo ku sugnay dhinaca iyo xaafadda Al-Zaytuun in la dilay kadibna laga qaatay dhammaan hubkii ay lahaayeen. waa howlgalkii ugu cuslaa oo xogaga ay fuliyaan tan iyo toddobaadkan oo gacanta ay ku dhigeen diyaarado drones ah iyo noocyada kala duwan ee hubka oo ciidankii hubkaasi watay ay sheegeen inay dileen. sidoo kale kooxda Islamic Jihad dhankooda waxay sheegeen in ay diyaarado drones ah ay gacanta ay ku dhigeen. sidoo kalena askar ka tirsan ciidanka Israa'iilna inay ku weerareen dhismo ku yaala magaalada Gaza gaar ahaan dhinaca koonfureed ayay ku sheegeen war-saxaafadeed dhankooda ay soo saareen. marka wuxuu ahaa howlgal aad u culus waxaana la yiri waxay gacanta ku dhigeen xogaga iska caabinta hubkii ugu cuslaa. arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo Xamaas la leeyahay waxay isku diyaarinayaan howlgal aad u culus. howlgalkaas oo ay qorsheynayaan in la fuliyo bisha barakaysan ee Ramadaan. haddaba waa kuma sargaalka muhiimka ah ee laga dilay ciidanka Israa'iil. sida warbaahinta gobolka ay baahinayso ciidanka gumeystaha Israa'iil waxay ku dhawaaqeen in laga dilay sargaal muhiim ah oo ciidankooda ka tirsanaa kaas oo ku sugnaa dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza. marka waxaa isku soo beegmaya iyadoo xogaga ay halkaasi hub badan ay ku qabsadeen diyaarado drones ay soo rideen kuwana ay gacanta ay ku dhigeen iyo sargaalkan oo la sheegay in lagu dilay magaalada Gaza. sargaalka magaciisa waxaa lagu sheegay Umaysher bin David Mali. waxaa la sheegay in lagu dilay dagaal ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza. waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in ninka lagu magacaabo bin David in uu ahaa 43 sano jir. waxa uu ahaa taliyaha tababarka ciidanka commandoska ee Israa'iil sida lagu sheegay qoraalkan. sargaalkan waxa uu kamid ahaa ciidamadii Israa'iil lagu dilay maalmihii la soo dhaafay si gaar ahaaneed howlgalkii maalintii shalay ay fuliyeen guutada Ciisediin al-Qassam. maalmihii ugu dambeeyay waa tii la lahaa guutadu ugu yaraan isbedel ayay sameynayaan xoogaa waxaad moodaa inay dhanka isdabaalinta ay xooga ay saareen iyagoo iska dabaalinaya weerarada ay ku qaadi jireen ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Gaza. laakiin xalay waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan in ninkan muhiimka ah laga dilay ciidanka Israa'iil. sida laga soo xigtay marka waa saraakiil aad u tiro badan saacadii la soo dhaafay xubnaha ay Israa'iil ku weynayaan dagaalada ka soconaya magaalada Gaza. toddobaadkii hore waatay ay soo bandhigeen warbaahintooda laga sii daayay waliba ilaa iyo 70 generaalo iyo saraakiil kale ah in ay qirteen in looga dilay magaalada Gaza tani dagaalka markii uu bilowday. tani marka waxay ka dhigaysaa in ka badan 587 ciidankooda kamid ah la dilay tan iyo 7 Oktoobar sida iyaga ay sheegeen. laakiin xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta waxay leeyihiin tirada annaga aan ku dilnay magaalada Gaza intaas way ka badan tahay. sababtoo waxay yiraahdeen in ka badan 1,000 gaadiidka dagaal oo nooca Markiva loo yaqaano ayaan ku burburinay magaalada Gaza. sidoo kalena waxaan gubnay gawaari badan oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen. wasiirka maaliyadda Israa'iil ninka xaq jirka Bezalel Smotrich ninka la yiraahdo qoraal ayuu soo dhigay bartiisa Twitterka. wuxuu yiri sargaalka la dilay ee commandoska tababarka u ahaa wuxuu ahaa sargaal aad muhiim u ah. dhowr jeer ayaan wada fariisanay buu yiri. sawirkan ayuuna soo dhigay bartiisa Twitterka. waxa uu yiri isaga iyo adeerkiiba waa la dilay waxaana lagu dilay magaalada Gaza. waan isla soo kornay buu yiri qasaarahana lama koobi karayo. yani qasaaruhu inta laguma soo koobi karo. afkiisa ayuu ka qiranaya wasiirka maaliyadda Israa'iil oo ah ninkii xaq jirka ahaa. isaga iyo wasiirka amniga gudaha waxay u babaxsanayaanba in dhismayaal cusub ay ka sameeyaan marinka Gaza. waatii aan toddobaadkii hore idinla wadaagay inay meel mariyeen golaha wasiirada dhismaha 3500 oo dhismayaal cusub ah
oo sharci darro ah oo laga dhisayo dhinaca daanta galbeed. qodobkaas aragtidaada qaybta hoose ku reeb, aad baad u mahadsan tahay.